warwaadili colaade inta dhiididan kaco igiyo malkaba huro ku dhiirada waa dagaale warwaadili colaade inta dhiididan kaco igiyo malkaba huro ku dhiirada waa dagaale بسم الله الرحمن الرحيم عوض فردقان قروحدا بدن aan iskugu imaanay waxa uu barnaamijku yahay ama munaasabada soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha beesha Qubays dhawaan la doortay soo dhaweyntiisa marka walaalayaal waa inoo furantahay xafladii waxaana hadda aan mataqaanay quraan kariimka inoogu furaya Sheekh Ahmed مركا فليتفضل الشيخ أحمد. حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جزاك الله خير شيخ. حفلة وينو فرنتهي waxaan soo dhaweynta kelmadaha koowaad ka jeedinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waa gabadheena Xaliimo marka Xaliimo bal bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum dhamaantiin waa idin wada salaamay dadkiina barnaamijka soo diyaariyay wafuuda sharafta leh dhamaantiin gacmo furan baa idinku soo dhaweynaynaa jaaliyada Qubays ee Bristol ku nool waxay jeceshahay inay gacmo furan oo wada jir idinku soo dhaweyso gudoomiyahayaga in aan la shaqeyno lana shaqeyn doono hil iyo hoona aan ag dhigi doono meel kasto ay qoomiyada Qubays ay ku nool yihiinna in ay ka wada qayb galaan oo aan kaligiis hawsha lagu daynina lala qabto ilaa far kaligeed fool ma dhaqdo dhamaanteena rag iyo dumar aan isugu tagno waxaan meesha isugu nimidna ay tahay in aan baraarujin iyo xog waraysi iyo xog is su'aalid iyo wixii maqan ee meesha ka maqan sidaan u wada buuxin lahayn gudoomiyahayaga sharafta lana aan ula shaqeyn lahayn asagoo qiimihiisa iyo mudnaantiisa intaba aan ognahay adigana welcome baan ku leenahay inaan kula shaqeyno oon heel iyo hoo ku horno diyaar bayno u nahdaan Bristol nahay gabdhaha Bristol iyo haweenka ragga Bristol degan intaba waxaan si gaar ahaan ugu mahad celinayaa walaalkay Liibaan Bare oo xafladan run ahaantii asagana wada jir xoog la ka qaato Bristol jaliyadeeda asna ah walaashay Sahro oo kale dhamaantiin inta qiimaha mudan ee xoog wada saartay mahad iyo bogaadin baan idin wada celinayaa hadda gacmo wada jir bay wax qaban karaan walaalkeena shaqada kaligiis aan lagu deynin all of them saan wada dhanaha dhan waa inaan la wada shaqeyno hil iyo hoo wixii anaga uu naga mudan yahaana aan ku garab taagnaan anigana welcome baan ku leeyahay aniga iyo freenadayda iyo familiyadayda iyo ciyaalkayguba intana waa ku support gareynaynaa shaqo wanaagsan Xaliimo Yuusuf aad iyo aad bay u mahadsan tahay ma sha Allah tabarakallah waa dadka hormuudka oo magaalada Bristol oo jaaliyada Qubays qoomiyadu waa nasiib horta wuxuu u yeeshay gudoomiyaha iyo wafdigiisa waa markii ugu horeysay oo aan iskugu imaano reerka Qubays ee degan magaalada Bristol marka munaasabadii ugu horeysay iyo barnaamijka ugu horeysay oo aan iskugu imaano ayuu horta u yeeshay gudoomiyaha asagana mataqaanaa inoo bilaabayba wixii hadda ka horeeyay waa tuulo yar magaca qoomiyadaha direed oo degan baan dhinac kaga jirnay oo wax la qaybsanaynay marka asaga ayaa maanta noo qoray qalinka inaan isku imaan karno oo aan mataqaanaa dad soo dhaweyn karno aan wax sameyn karno
marka ayagana saantay noo soo qaadeen jasaakumullah khayr gudoomiyaheena iyo wafdiga ballaaran ee la socda ee looga yimid London weatherka aadka u liita oo khatarta badan noo soo dhaqaaqay walaal jaceelnimo iyo ehelnimo iyo mataqaana inay dadkii isku soo dumaan oo haddii dadku aysan samaysan madax ama hogaamin wuxuu noqonayaa sida ugaartii oo kale marka intii ka shaqeysay iyo xilka uu aqbalay culayska badan gudoomiyaha intooda baan u mahadcelinaynaa jasaakumullah khayr waana ku garab taaganahay sida Xaliimo u sheegtay waana soo dhaweynaynaa saqiiri kabiirkeena marka daahir boqorre welcome culayska lagu dhiibayna Allah kula garab galo insha Allah saan wada dhannahay Allah ku fududeeyo intii ka shaqeysay oo ugu horeeyo walaalkeen Maxamuud iyo mataqaana wiilkaas yar oo Umar Deeqa iyo mataqaana rag kale kulli aan magacaabi karno tirada badan oo London degan intana waan u mahadcelinaynaa insha Allah xafladihiina quruxda badnaa aad caleemasaarka iyo doorashada gudoomiyaha intaba waan fiirsanay marka caalamka dhan waa laga fiirsanayaa waa wax ku dayasho mudan oo meel walba adduunka Qubays uu jooga waa inuu sidaas oo kale sameeyaa oo uu yeeshaa madax marka dambana waxa la iskugu imaan doonaa madax guud kulli oo dadku haddaysan madax lahayn wuxuu noqonayaa dad sidii biyo fidoo kale ayay noqonayaan marka waxaan ilaahay ka rajeynayaa qowmiyadan iyadoona dad dhibkii aan iskugu imaanayeen in ay iskugu imaadaan horumarkooda iyo danahooda qaaska ah si ay ummadda uga dhex muuqdaan marka welcome bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay daahir aad iyo aad baan u salaameynaa aad iyo aadna u soo dhaweynaynaa annagoo gabdhaha reer Bristol maashigaaga waan ku faraxsanahay aadna waan kuu soo dhaweynaynaa xilkan aad qabatayna ilaahay kula garab galo insha Allah aad iyo aad baan u mahadsantahay maatinkaaga dhammaantiin waa salaamantihiin maanta inta taqaano oo intaas ugu imaan aad u yartahay waxaan filayaa waan isbaranay maanta dadku waa idinkaga aqoonaya anytime aan is aragno marka intaas waa farxad weyn ah waana ku faraxsanahay inaan isku imaano reer Bristol oo aan isugu imaano macnaha in horumar iyo wax inaan gaarsiino reer Qubays marka taas wax weyn ah iyo farxad weyn marka waa ku faraxsanahay aad iyo aad alxamdulillah waliga meel loo kulmo ma tagin maanta ay ugu horeyso waana ku faraxsanahay inaan walaalay ka mid ahaado marka waa idin salaamaya dhamaantiin waana ku faraxsanahay marka muhiimada ugu weyn inta isugu imaan waxay ahayd in aan gudoomiyaha soo dhaweeno waana ku faraxsanahay waana soo dhaweenaynaa marka soo dhawaaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جالية رير بريستول قبيس وقدومية وياهي قارهان مقالة بريستول walaalkeen liibaan bare xaaji soo dhaweynta quruxda badan ee noo samayseen qaabilaada gudoomiyaha guud ee Qubays marti sharafta oo oday u yahay Murshid Cabdicuud odaygeeni maalqabeenka reerka iyo ganacsiga reerka ugu weynaa iyo ninka ugu magac dheeraa markii la yiraahdo Middle East iyo Khaliij Jidda ma sha Allah tabarakallah Sheekh Ahmed Sabriye geedi gabdhaha sharafta walaalahaya oo magacooda hal soo koobi karin iyo inta kale ee meesha nala joogta oo Burhaan Sayyid Cabdiraxmaan uu kamid yahay dhamaantiin mid iyo guud ahaan waan salaameynaa ana ku hadlaya magaca waftiga London aad iyo si aan la soo koobi karin oo dareen walaaltinimo leh oo aad u sareeyaan idin salaameynaa waadna ku mahadsantihiin qaabilaadiina iyo meeshan quruxda badan ee nagu qaabisheen iyo hawsha tan iyo maaragtay labadii wiiga la soo dhaafay ku jirteen diyaar garowgiinii aad baan uga mahadnaqaynaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay in aynu istaagno wax inaga inoo dana waxa inaga inoo dantii wuxuu yahay maxaa inaga maqan maxaynu u baahannahay xageenu soconnaa ummaduhu xagee higsadeen
dadkii inala midka ahaa maxay haysteen, maxaa u qabsoomay, innaga maxaa inaga maqan. qofka ilaahay adduunyada dusheeda markuu keenay dee kolley iskama keenin, hadday noqoto mas-uuliyadda aakharo iyo allah, hadday noqoto mas-uuliyadda adduunyo, waxaa laga bilaabatay qoyskiisa iyo gurigiisa, ta dadka ku soo xiga, oodba ooday ka soo xigto, ilaa iyo meesha inshoranskiisa ugu dambaysays yaallo. sababtoo ah inshoranskaasi midna waa ka cibaadadii aakhiradaada iyo ilaahaaga idinka dhexeeya, midna waa ka ehelkaaga iyo dadkaaga iyo adduunyadaada idinkala dhexeeya. waxaa loo baahan yahay inaynu isu taagno waxbaa inaga maqan, waxa inaga maqan. markaan ka hadlo qoyska la yidhahdo qoys, shaksi markaad ula kulanto iyo meel kastood kula kulanto iyo degan kastood kula kulanto, qof kastaa waa cirkaa ka soo dhacay oo caqliga ku jira iyo fariidnimada ku jirta iyo raganimada ku jirta iyo dadnimadkiisa, wax la soo koobi kara maahan. haddana haddii la yidhahdo ha laysu yimaado, waxa la wada qabto, qadiyad ha la qabto, arrin timid ha la maaragtay qabto, dee kolley waxaa weeye waxaa laga yaabaa in aan sidii ugu wanaagsanayd ayna u dhicin. waa laga yaabaa dad inaga liitaa inay jiraan, laakiin anigu waxaan dareemayaa inaynan dadka u sarreeya ayna ahayn. marka waxaa loo baahan yahay inaan iswacyigelinno, dareenkeenna xoojinno, kor u kacno, aynu waxba inaga maqana waxa raadsanno. waxay ila tahay xilligii ugu habboonaa oo hawshaas aynu qabsan lahayn hadda weeye. nin waxaan dooranay runtii hadda waqtiga la joogo, markii dadkii la dhex maray, qoyskii la dhex maray oo dhinac walba la eegay, la yidhi ninkanaa ka bixi kara xaaladda hadda lagu jiro. daahir boqore si guud oo isku duub ah baa loo doortay. marka waxaan codsanaynaa in qof walba yacni ninka la doortay magac buu wadaa, laakiin tiirarshii uu ku istaagi lahaa iyo balashu ku duuli lahaa iyo jeebkii uu lacagta ka bixin lahaa intuba waa innaga. in macnaha nin waliba hawsha meesha kaga aadan uu ka galo, inaynu waxa inaga maqan aan sida ugu dhaqso badan u gaadhno. aad baadna u mahadsan tihiin, dee wabilaahi towfiiq. guddiga sharafta leh oo hogaaminayo daahir, doctor daahir maxamuud, cumar, dadkii badnaa ee london nooga yimid munaasabadan waa idiin soo dhaweyneynaa. gaar ahaan daahir waxaan kugu duceyneynaa xilkaa badan oo weyninka badan, sida aad u xambaartay inuu ilaahay towfiiqdeeda ku waafajiyo. support iyo dhiirigelin iyo waxaad u baahan tahayna aanu diyaar la nahay. beesheena gaar ahaan wixii Bristol jooga waad maqlaysaa idaad oon kala dambeynin in lagu soo fidiyey. wabilaahi towfiiq, waxaan rajaynaynaa inaad ku najaxdo biidni illaahi alaxad. bismi illaahi raxmaan raxiim. horta intaanan danihii aan halkaa u nimid aanan ku hadlin, waxaan u hambalyeynayaa horta xafladdan dadkii iskugu kaaya soo arooriyey oo isku kaaya keenay. waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan maqlay, waana stebkii koowaad, taakadii ugu horreysay oon maqloon mirihii ka dhashay weeye maaragtay in reer bulstala ay yidhaahdaan maaragtay isku imaasho aan isku imaano waa no kow. markii aanu isku daynay inaanu wax qabanqaabino, isku soo aruurino danihii ugu muhiimsanaa oon damacsanayn inaanu ka tallaabsano waxay ahayd in ciddaan Qubays laysku keeno sidii hadba la iskugu keeni karo. marka hadallada aan hadda maqlay dhiirigelin bay ina sii siinaysaa oo maaragtay maanta iskugu kaay soo horeysa. waxaan u malaynayaa qaarkeen inay meeshaan degan yihiin markay u iraato 10 sano 15 sano 18 sano inay degan yihiin. marka stepkan hadda dhashay waxaan rajaynayaa maaragtay insha allahu tacaala in maaragtay horumar iyo horu socod bilowday uu noqdo. gudoomiyaha iyo inta wafdiga ah oo la socdo London iyo meesha ay rabtaba ha ka imaadaane isku soo dayay inay meeshaan wax ka unkaan ama ay isku taakulayaan oo ninka liibaana uu asaaskeedii lahaa in la yimaado.
waxaan kula talinayaa aan ku waaninayaa inay hadda kadib ay ka dhigaanba maaragtay rukun mar walba in la imaadaa si inta maqanna loo helo. qodobka kale aan ku darsanayaa wuxuu ahaa meeshan waxaan rajaynayaa in dad ka badan ay imaan lahaayeen, laakiin sababta hadda aan xoogaa dadkii qaar ka dhiman yahayna waxaan u cudur daarayaa maadaama ay maalin jimcaha tahay. jimcahana dadku ay wada shaqaynayaan. Aniga laftigayga anoo dhar shaqo qabaa laga soo saaro la yiri maaragtay baabuurka ku dhar bedelo. hadday sabti tahay hadday axad tahay maanta waxaan u malaynayaa in maaragtay meel kala fariista la weyn lahaa, laakiin haddaba intaan waa ku qanacsanahay dadka jooga. marka aad baan idinku mahadinaynaa soo dhawaanshaha nagu soo dhaweyseen aniyo gudoomiyaha iyo wixii la socdo aniga aan kamid ahay Maxamed Cabdiweli kamid yahay. qodob kale aan ku darayaa wuxuu yahay arintaanu u aasaasnay oon gudoomiye u dooranay oon niri maanta muxuu ahaa Daahir Xaaji Boqorre arintaani waa naga saari karaa. waxaanu aragnay inay tahay arin aanu maaragtay dadkii inaan ugu hooseyna mooye xataa middle inaan soo gaari karin markaanu aragnay ayaanu garawsanay inaanu maaragtay saan inaanu ku sii socon karin inay tahay. hadde waxaan la hadlayana waa bulshada Qubaysa hadda inta fadhida kaliya ma ahana waa wixii naga arka YouTube-ka iyo wax walbaba waa un video waa gudbaya. marka waxaan idin cadeynaynaa maanta annagoo Bristol joogna London tookada hore joognay arintaani arin dhalatay weeye gadaalna looma celin karo. cidaani cidna duulaan kuma aha dadna duulaan kuma aha dadkeeda iyo ehelkeeda ay rabtaa inay isku soo aruursato oo kala firirsan tabardarra ku hayso mucaawanadooda isku keensanto. hadda ninkii walaala ama gabadhii walaalaho nagu caawinaysana soo dhawo baan leenahay. hadda ninkii cadownimo iyo walaal fidqilala iyo furfur iyo maaragtay maxay ku socdaan iyo xaaladdu siday tahay iyo ninkii ku wadana waxaan leenahay walaalow ama walaalay dan gaara uma soconno dan guud oo Qubays baan u soconnaa. wixii aad noogu gacan qaban karto ama aad nagu taakulayn karto nagu taakule. haddii adigu aad diyaar u tahay oo na hogaamin karto hoggaanka ka qayb gali karto qof kastoo tahay welcome soo dhawow. haddii aad gacan yare ka noqon karto soo dhawow. kaliya waxaan ka rabnaa ehelkaas meeshii aad iskaga soo dumi karto iskaga keeni karto dhinacay rabta ha ahaatee inaad iskugu kaaya keento. intaasaan walaalow hadba qofkii aad tahayba ama dhallinyaradeena yararka ah ee soo kacday oo YouTube-yada ay ku fiican waxaanu ka codsanaynaa wixii si boor ah inoogu dari karaan inay noogu daraan. kulli hadalkan inaan ku sii dheeraada ma rabo. waxa muhiimka ahi wuxuu yahay inaanu maanta tani aasaasantay aasaaskeennana gunta iyo meeshaan u soconnaana ay tahay dad walaalahooda Soomaaliyeed wax la qaybsan kara oo cadka ayagu ay leeyihiin aan loo sheegin ayagu sheegan kara in maanta wixii ka dambeeya aanu nahay. taasaanu unkageeda wadnaa asaaskeedu wadnaa. waxaan rajaynayaa gudoomiye Daahir Boqorre inuu arintaas horqaad iyo horjoog noogu noqon doono. dadka walaalaheen oo kale meelaha kale naga fiirsanahay amana arkaan waxaan rajaynaynaa inay taa nagu taakuleeyaan ayna la xishoonin arinta maaragtay maanta miyaan ku laabanaa maaragtay qabiil. maanta qabiil ku laaban mayno laakiin wixii bulshada wax u tarahaya waxaanu ka leenahay kaga xishoon mayno inaanu maaragtay banaanka ula soo baxna wixii dadkeen ehelkeenaan ku taakuleynayno. dadna duulaan kuma nihin walaalaheen Soomaaliyeed dadan duulaan ku noo gaara ma jiraan. wixii nagu taakuleynayo nagu ehelsanayo annaguna waa ku ehelsanaynaa. wixii nagu dumahayo nagu dhibahayo nagu durahayo ama nagu eedeynahayana waa iska celinaynaa. laakiin danta annagu aan leenahay waxaa weeye inaanu ehelkeena isku soo aruurino. waa kala daadsannahay afarta been jihaan kala jirnaa fisqilana nahay dadka maanta ugu kala daadsan baan nahay. haddana qofkaad la hadasho wax weydiisoo tiraahdo war saasaan nahay yacni isla weynadu u qabo wuxuu leeyahay maya annagu saas maynayne alxamdulillah waa nabad qabnaa wax dhibana ma hayo saan nama hayo. marka hadalkayaanu ku badan haddii wax kale lagaga baahdo waan ku darsanayaa wixii aan hilmaamsanahayn waxaan rajaynayaa walaalahay kale inay ku daraan insha Allah taala. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waxa inoo haray gudoomiyaha Daahir Boqorre
magac laga maskiin ma aha soomaaliya oo dhan baa dooratay annaga ma aha waxaan dooranay annaga un waxaa waaye sababta un baan lahayn waxaan u malaynayaa intii fiirsatay waa loo wada dhammaa marka annagana dee waa maasha allah tabaaraka allah waa xidig noo dhashay marka kusoo dhawow walaal daahir boqorre horta waa salaamatihiin dhammaan reer Bristol waxaan caawa farxad baa iga muuqato farxaddaasna waxa weeye sidaad uga soo qayb gasheen haddii aad tihiin haween rag aqoon-yahan culamaa udiin dhalinyaro wiilasha yararka ah oo aan weli qaan gaarin oo hadda caawa looma kala harin waxa la dhihi jira weeye aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa weeye dadka magacyadooda halka kuma soo koobi karo runtii laakiin cawada qiiro weyn baa ay geliseen wixii aan malaynayey oo reer Bristol aan ka malaynayay waa ka helnay waxaan dareemaynaa reer Bristol inay yihiin dadkii indhahooda inay noo doonaan rasuulkeena salawaatullaahi caleyh wuxuu yidhi reer Beder waxay doonaan ha sameeyaan reer Bristol cawada reer Beder baa la mid waxa la mid tihiin waxa weeye waqtigiinii maalkiinii wax walba waa horteen waxa weeye qofka maanta kuu yimaado weatherkan dhacayo oo intaa martiqaad kuu fidiyey oo kuu yeeray waa wanaag iyo sharaf walaaltinimo ku tusay waxaan rabaa 3 qodob oo dardaarana inaan idin siiyo waxa weeye aadamigu markuu tashaweeyo waa loo tashadaa waxa weeye la socotiin in badan muddo dheer waxaan ku mashquulsanaynay sidii deegaanadeen aan ka nimid dadkii sidii wax loo gaarsiin lahaa dadkuna waxba lama gaarsiin karo haddii ayna jirin hoggaan iyo maamul iyo kala dambeyn waxaa la socotiin macaawooyin badan oo dalka soo galay oo gaarayo billions inay dadka waxba ka qaadan sababtoo waxa weeye ayagii ayaan diyaarsan wax ku qaadan lahaayeen waxa caawa farxadii inaad ii sheegtiin in aad tirahdeen cawada ka hor ma imaanin inaan isku nimaadno laakiin waxaan u qaadanayaa taasu inay tahay dad shaqadoodii iyo diinkoodii iyo hawshoodii ku mashquulsan oo ugu talagalay adduunyadan dhibaatadeedii inay ka saa'iraan oo xagga culamaa diinka iyo diinta u saa'iraan dadka annagu aan ka dhalanay ee qubaysa waxaa lagu yaqaanaa diin jacayl waxaa lagu yaqaanaa nabadgelyo waxaa lagu yaqaanaa allatuug waxaa lagu yaqaanaa dad ilaahay ka xishoodo maanta dadka muuqdo waa dadka ilaahay ka xishoonay waa dadka dhiigga bini'aadanka u bareeray waa dadkii wax walba xalaalaystay waxa maanta muuqdo waxa weeye annagu waxaa uma basasyoonayno ilaahay baana ka magan galnay in qof soomaaliya oo shahaadanayo dhiiggiisa in lagu degdego in xoolihiisa la qaato in cirdigiisa sharaftiisa la banaysto waa wax xaaraan qadana ilaahay baa ka magan galnay subxaanallahi lana laakiin walaalayaal haddana iyadoo taas aan lagu dhacayn ayaa waxaa loo baahan yahay maamul iyo ismaqal iyo dad isku xiran oo walaalaah oo meel wada dego oo isqiimaynayo oo iska warqabo oo ilaahay dartii wax walba ay ka yihiin baa loo baahan yahay ma ahan dadku inay ama dhiig cabaan ama ay ilaahay kuwa darnaaday ayna waxba noqon ay kala maqnaadaan labadaasu inay u dhexeeyaan dadku maaha waddo dhexe oo saddexaad baa jirto oo ah dadkii inay dad qiimo leh oo walaal iyo ehelnimo ka dhaxaydo oo ilaahay dartii iskugu tabarucaya inay jiraan waxaa la socotiin meelo badan oo dalka oo dhulkii aan ka nimid deegaanada ka nimid inay u baahan yihiin ceelashii iskuuladii dadku burbur weyn baa soo galay reer Bristol waxaan qiyaasaynaa dad badan inaad ku joogtiin weliba dadkii noogu qiimaha badnaa inaad joogtiin halkan oo indhaha u ahay bulshada qubays marka waxaa laydinka doonayaa bacdamaa aad dadka noocaasa tihiin bacdamaa gogashaa qurux badan aad fideen bacdamaa aad tihiin dadka maantay soomaaliya oo dhan indhaha kusoo taagaydo soomaaliya maanta waxaa la sugayaa nin aanan dhiigna gelin dembina gelin oo aan criminal ahayn in soomaaliya uu la wareego haddii la yidhaha yaa waayo qubays buu noqonay anaa idiin caddaynayo dhiig ma gelinina criminal maadi dembina ma gelinina qofka criminalka waxba looma dhiibi karayo maanta waxaa haysatii jaanis fiican dadka ugu jaaniska badanna soomaaliya idinka wey maanta dadka ugu qiimaha badanna waa idinka waayo ilaahay xaggiisana buu qurxoon baa idii qoran aadamiga xaggiisana buu qurxoon baa idii qoran ilaahay xaggii waxaa idii qoran inaa gacan ku dhiglayaal ahaynina inaadan dembi gelinina aadamiga xaggiisana waxaa idii qoran inaa criminal ahayn waddankaa ninka criminal noqo mashaqaa la siiyaa maya wey
criminal ma ahidin dadka maanta Soomaaliya maamulaya tihiin ilaahay bana caaqibada gacantiina ku dabaysiinayo sababta waxa weeye hadda waxaan loo kicinay waxa weeye waqtigeedii baa la joogaa walaalayaal hadda waxa la joogaa waqti ay wax qaban lahaydeen waqti ay hawshu soo jeesan lahaydeen waxaan doonayaa cawada saan kale idinkaga tagi mayno waa ina adikoo maamulkiin iyo gudiyadiina leh oo aan cawada de kulli wixii hadda ka dambeeyo aad jid dariiq islaamka u adeegaydiin walaalihiina u adeegayeen aad ka tagno waxa weeye meesha tan waxa weeye waxa la gaagaabiso guri waa haween bay Soomaalidu tiraada haweenkii baa loo baahan yahay inay wax nuuxiyaan ragga waa la soconaa qurbaha markii la yimid dhib badan baa iska yimid dhibka yimid waa dhib yani xaq Ilaahay ka socdo sababtoo ay wadanku wax meel walba sida taala loo yaala muhiimadu waxay tahay anigu hadda Cayni iyo Caasho iyo walaashay waa ila joogto oo Xaliimo iyo gabdhihii kale oo halka hadda ila joogo ayagana hadda xagaa jiro waxaan farayaa in maantay loo istaago in hawshan la garab istaago ma ahan anagu inay waxaan ka cararayna dhibaato inay tahay ma ahan waxaan ka cararayna inay tahay waa waxa maantay waqtigeeda la jooga waqtigii dadkii go'aan ku dhiglaha haraya la jooga waqtiga waxa la jooga afmishaar haray waqtiga waxa la jooga turfatoor haray waqtiga waxa la jooga dadka dhici jira harayeen waqtigiini way this is your time hurdaka way marka waxa loo baahan yahay waqtigaaga hadii la jooga beer darayn adigu go'aan ku dhigla ma ilaahay dartii baa u shaqaysanaysa nin hawldiin baa ahayd diintii badda u gargaarid nabadgelyo ku taageerid waqtigaagi ka faa'iideyso ma garanaysaa ma loo baahna inaad tiraahdo marka maalin kasta waqtiga ma joogo maanta waqtiga jooga adduunyada way soo nacday maalin dhaweed UN-kii baa la tagay dad badan baa qabiilo badan baa isqoray oo waxay dabceen inay yani ay tagaan oo ay yiraahdeen annaga hadna la sharaxayo waxa la yiri criminal baarlamaanka ma gelay yow banaayay haddii criminal la diido gacan ku dhig la diido janiska iyo askari ninkii ilaahay dartii u shaqaysanayay oo aan yani ayaa chance askari walaalayaal hadda waxaan anagu idinka mahad celinayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta laheed wixii quruxda badnaa halka aad dhigteen xafladii aad baa idinka mahad celinayaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan safar labaad ku soo noqon doono waxaan idin leeyahay reer Bristol waxaa tii reer Badar waayo meel weyn baa wax gaarsiideen caasimada adinka fidiyay gogosha adinka dhigay karaamo iyo sharaf baa Ilaahay idinkaga rajaynayaa waana ka baxay sallallahu alayhi wasallam